guud ahaan asxaabta kala duwan waa mahadsantihiin meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij taxana noqon doona oo toddobaadkii hal mar ay la socon doontaan barnaamijkan oo hal ku dhigiisa ama magaciisu yahay barnaamijka weydiin iyo waxtar sida magaca ka muuqata waxa su'aalo lagu weydiinaya bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer qofkii su'aasha ka jawaaba waxa uu helayaa abaalmarin lacageed haddii uu su'aasha gartay barnaamijku waxa uu si kadisa ula kulmayaa qofka isagoo aan u sii sheegin waxaana si kadisa loo weydiinayaa su'aasha qofkii su'aasha ka jawaaba ayaa abaalmarintan la siinayaa barnaamijku wuxuu u safri doonaa meelo kala duwan waana suuragal in barnaamijkan adiga laftarkaaga daawade aad qayb ka noqon doonto oo marun barnaamijku kula kulmi doono soo dhaw walaal waxa kula kulmay barnaamijka weydiin iyo waxtar oo aan su'aal kugu weydiinino haddii su'aasha aad ka jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin lacageed sideed u aragtaa marka hore aad u fiicanta waayahay waxaan doonayaa halkan aan kuugu nimi si kadisaan kula kulanay adigoo shaqadan haya bal marka hore bulshada waxaad u yar sharaxdaa magacaaga iyo shaqada hayso ana horta magacayga waxa la yiraahdaa Meer Jaamac nin furniture ka shaqeeyo waana sarreeyo fadhiyada waan sameeyaa waxaan doonaynaa inaan su'aal ku weydiino su'aasha haddaad ka jawaabto waxaad helaysaa lacag abaalmarina oo $10 diyaar mooto su'aasha waayahay haddii aan su'aasha ku bilaabo waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana wuxuu noqdaa wax dadka oo dhami jecel yihiin marka magac ragga marka hore aan kugu celiyo waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyaa oo marka xarafka hore laga saaro wuxuu noqdaa magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana wuxuu noqdaa wax dadku dhani jecel yihiin bal maskaxda ka shaqaysii oo bal isku day inaad sheegto inna markaad maskaxda ka shaqaysiiso waxna ku soo dhacay barnaamijka waxaan doonayaa inaan kugu weydiino hal su'aal halka su'aal haddii aad ka jawaabtana aad helaysaa abaalmarin lacageed marka ugu horeysa sideed u aragtaa marka hore waan ku dhawahay barnaamijka wax weydiin iyo waxtar aadna waan idinku mahadnaqayaa dee su'aashan haddaan garto alxamdulillaah haddaan garan waayana waa alxamdulillaah dhibaato ma laha waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana noqdo wax la jecel yahay waa maxamed wey haddaad ku noqoto mar kale bal maskaxda ka yara shaqaysay weliba aan su'aasha kugu celiyo marka laga hadlayo ragga ayaa magacan loo bixiyaa xarafka u horeeya marka laga saaro wuxuu noqdaa magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana wuxuu noqdaa wax dhammaan la wada jecel yahay ama dhammaan dadku wada jecel yihiin wallahi anu ma garanayo haddaan maxamed ahay ku soo dhawow waa barnaamij kadisa qofka annaga dooranayna isagaan ku talagelin baan la kulmaynaa marka barnaamijka waa weydiin iyo waxtar baa la yiraahdaa barnaamijka su'aashan ku weydiina haddii aad garato abaalmarin lacageed oo $10 baad helaysaa marka hore waan dhawahay walaalo Saafi Axmed Ismaaciil anaga ayaa la yiraahdaa waayahay Saafi waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo su'aashan ku bilaabo su'aashu waa mas'alo marka waxay u baahan tahay inaad madaxa ka shaqaysiiso waxay ku oranaysaa waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac gabadheed marka xaraf kale laga saarana noqdo wax dhammaan dadku jecel yihiin ku celi su'aasha maxaad igu tiri waa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac gabdheed marka xaraf labaad laga saarana wuxuu noqdaa magac dhammaan dadku bay waxay dhammaan dadku jecel yihiin waayahay marka miyuu ka dhaxeeyo dumarka iyo ragga magac ka wada dhaxeeyo matalan loo wada bixin karaa mise waa qof adigu waa magac marka ragga loo bixiyo wani magaca ragga marka hore loo bixiya xaraf baa laga saarayaa magac dumar buu noqonayaa mid kale laga saarayaa wuxuu noqonayaa wax dhammaan dadku wada jecel waayahay insha Allah waayahay bal waayahay fayro kale
rag iyo dumar way wada leeyihiin baab garan karo fayr oo kale ها فير ها هبلانا والله بحينا مدنا والله بحيا واي هاي أنا حسوسته وما سنت وما سنت سؤال ما يقرن برامج كولا كسودو سكديسان وكولا كولاني وهالكن أديكو فرديو كوجنا عسنايا برامجكو وحكويديني هل سؤال هدي أتقرأتو حد هلا سابال مرين العجين سيد ورق تمر كولا barnaamijkan waa soo dhaweynaya marka hore marka labaad ee su'aal wixii ay weydiinaysaana wixii wax ka garto dee waa ka jawaabaya waayahay waxaan ku bilaabaynaa bulshadaad ka mid tahay barnaamijkanna cid gaar ah ma dooranayay si kadiisun baa qofka loola kulmaya waa qofkii nasiib u hela nasiib baad u yeelatay marka inaad dadka ka mid noqoto marka waxaan doonayaa inaan su'aasha ku bilaabo su'aashu waxay ku odhanaysaa waxaad sheegtaa magaca ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga saarana noqdo wax dhammaan la wada jecel yahay su'aasha magaca laga bilaabo magac nin marka hore laga bilaabo magaca marka hore waa magaca nin marka xarafka hore laga saaro wuxuu noqdaa magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana wuxuu noqdaa wax dhammaan dadku wada jecel yihiin su'aasha xarafka laga saarayo imkan yowma ma garanayo waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga saarana noqdo magac wax la jecel yahay markuu yiraahdo haddaan kugu celiyo waxa weeye magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro wuxuu noqdaa magac dumar marka xarafka hore laga saaro wuxuu noqdaa magac dumar marka xaraf kale laga sii saarana wuxuu noqdaa magac wax la jecel yahay haddaan isku dayo waa magacaas waa nuur nuurna xaggaa dambe aan iska xidhayn su'aasha ma kasayo waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga saarana noqdo dhammaan wax la wada jecel yahay bismillaahi raxmaani raxiim maxamed faarax ma maqlaysaa arrinka kama tashana way ugu kadis laakiin magaca haddaan imika islaaho qaad waa magacyada sida amiir weeyaan oo amiiru noqon karaa amiira marka laga saaro si kale loo bedelo magacyada noocaasoo kale buu noqon karaa magacyada dumarka iyo darago sida khadra iyo aasiya magacyada noocaas haddii aan jawaabteedu saxda ku hayna waa mahadsantihiin hadaan su'aasha u gelin waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo magacaaga inaad arday tahay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Muuse Cabdi Maxamed sidoo kale tan kaga jawaabay su'aashaas mihii arday waxaan ahay graduated wad qalin jabisay waayahay sidaad u aragtaa su'aashan kadib su'aashan waxaan u arkaa dee wax kulley bulshada uu maxay ahaydee loogu qaadayo wacyigooda iyo aqoontooda kor aadna waad ugu mahadsantihiin weydiinayo waayahay waxaan doonayaa inaan ku bilaabo waxay ku odhanaysaa su'aashu waxaad sheegtaa magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro noqdo magac dumar marka xaraf kale laga saarana noqdo magac wax la jecel yahay haddii aan kugu celiyo waxay odhanaysaa magaca ragga loo bixiyaa haddii xarafka hore laga saaro wuxuu noqonayaa magac dumar haddii xaraf labaad laga sii saarana wuxuu noqonayaa magac wax dadku dhammaan ay wada jecel yihiin waxaan maleynayaa magacaasi uu daa'uud yahay maayo su'aashaas guud ahaan asxaabta qiimaha badan meel kasta joogtaan waa ku mahadsantihiin la socoshada barnaamijka weydiin iyo waxtar toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinka imanayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer su'aasha toddobaadkan waxay ahayd magac ragga loo bixiyo oo marka xarafka hore laga saaro magac dumar marka xaraf kale laga saarana noqdo magac wax dhammaan dadku ay jecel yihiin su'aasha barnaamijka waxaan ugu talagalay ugu yaraan in 7 qof oo meelo kala duwan aan kula kulannay si kadiisa su'aasha loo weydiiyo cidii garatay su'aashan abaalmarinta la siiyo toddobaadkan cid ku guuleysatay abaalmarintaasi ma jirto waxaan doonayaa asxaabta barnaamijka la socotay inaan su'aasha uga faa'iideysto taasoo noqonaysa
magaca kamaal markay gabadh noqoto ee xarafka hore laga saarana waa amaal marka ay wax dhammaan dadku ay jecel yihiin uu noqdana waa magaca maal oo noqonaysa lacag waa mahadsantihiin guud ahaan barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Faarax Bile dhanka kamarada waxa duubay saaxiibkay Cabdiqani Baafo guud ahaan intiinu barnaamij la mid ah ku kulmi doono haddii Allah awoodo la raali ka noqdo waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waxay ahayd 2005 ayaan halkan degnay ilaa 2005 wixii ka dambeeyay meherdu markaa way shaqaynaysay waxaan iibinaynay ilaa 2005 waxay haayeen weel ilaa iyo hadda salaajideed waxaan iibinaana waxay u badan tahay waa jumla oo waxa weeyaan waa alaab jumlada oo aan inta badan dibadda ka keeno way jiraan shay gudaha naga soo galaa walaal aanay burrayn misana alaabta waxa weeyaan waxay u badan tahay jumlada dibadda ay badan tahay dibadda ka keenaa kastamarkeeduna waa badan yahay aad bay badan yahay waxa weeyaan dhul badan baa laga soo dalbadaa siday u badan tahay waliba kilka u badan tahay kilka shaqad badan tahay waxa weeyaan waxaan ku dadaalnaa markaa waxaan ku kasbanay dadkaan ku kasbanay waxa weeyaan in alaabooyin cusub aan had iyo jeer la keeno waan ku dadaalno shay cusub inaan keeno ama shay ka dambeeyaan keeno ama aan ku talagalno in waxba laga waayin inteeda badan shaqaale u jaban wixii waxa weeyaan u dadaalaya waxa weeyaan qancinaya qofkii oo soo dhaweynaya oo waliba wuxuu raacinaya alaabooyinka wuxuu raacinaya kale waxaan ku rajo weynahay inaan meherad kale iyo qaybo kale furro oo qaybaha kale ay ka mid yihiin sida fadhiyada kale iyo meelo alaabooyinka wax lagu qurxiyo ay waxa weeyaan aan ka dhigno oo haddana aan ku tala jiro insha Allah biidnillaahi taala